kusoo dhawaada shabakada Sayax oo ah shabakada aan kusoo bandhigno cilmiga teknoolajiyada. waxaan casharkan kaga hadlaynaa sida ugu fudud aad drive ugu xidhan kartid password inagoo aan isticmaalayn wax software ah haba yaraatee. tusaale ahaan e-drive waxay ugu xidhan password password ku aan geliyay. sidaas oo kale waxaan rabaa D-Drive inaan ugu xidho password. haddaba talaabada ugu horeysa aan qaadayno waxa weeye waxaan soo furaynaa start menu-ga, kadibna halkaas waxaan ku qoray control panel waa kan ugu sareeya, click then category large icon dooro, BitLocker drive encryption ku dhufo, then drive kaan u baahanahay inaan ku xidho passwordka ayaan dooranayaa. hadda waxaan rabaa drive D inaan tusaalaha ku bixino, click baan siinayaa, then turn on BitLocker ayaan ku fanayaa. wax yar baad sugaysaa, kadibna waxaad dooranaysaa use password to unlock the drive. waxaad gelinaysaa passwordka aad u baahantay inaad ku isticmaasho. kadibna next, kadibna halkan waxaan ka dooranayaa meesha aan u baahanahay in backup la dhigo haddii aan hodhow ilaawo passwordka si laga soo celiyo. save to file baan dooranayaa, kadibna waxaan dooranayaa drive-ka aan u baahanahay inaan dhigo backupta. dhigi maysid drive-ka aad ku xidhaysid passwordka, balse drive kale waa dooranaya. tusaalaan haddaan e baan dooranayaa, kadibna waxaan new folder baan doortay, waxaan u bixinayaa my backup, kadibna save. okay, next, start encryption. hadda waa way u xidhnay.